رئيس الوزراء waddanka Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayaa khudbad ka jeediyay xafladii calaamisaarka madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo khudbadiisa kaga hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin siday ula shaqeyn doonaan dawladda cusub ee Soomaaliya uu hogaamiyo Farmaajo iyo arrimaha gobolka. Markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu soo istaagay howlka uu ka khudbeynayay ayaa waxa uu hadalkiisa ku bilaabay. Your Excellency Mohamed Abdullahi Farmaajo, President of the Federal Republic of Somalia, Excellencies, Heads of State and Government, honorable members of the Somali Parliament, Farmaajo, madaxweynaha federaalka Soomaaliya, xubnaha kale ee dawladda iyo labada gole ee baarlamaanka iyo martida kale. Ugu horeyn anigoo mas'uul ka ah shacabka iyo dawladda federaalka ee Itoobiya waxaan doonayaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan qeexo dhiirigelintayda iyo hambalyeentayda oo ah mid qalbiga ka timid uguna hambaliyeeyo shacbiga Soomaaliyeed kuwaas oo ku dhibtooday cabsida iyo weerarada al-shabaab inay si nabad ah ku doorteen baarlamaankii federaalka ahaa iyo madaxweynihii ay doonayeen. shacabka Soomaaliyeed waxay sameeyeen taariikh waxaanay tusaale wanaagsan u noqdeen dadka dalalka khilaafyada ay ka jireen iyo kuwa khilaafyada ka soo baxaya caalamka. tani waa tilmaanta saxda ah ee dal aan Soomaali ahayn aysan ku go'aansan karin hamigooda. waxaan kale oo aan doonayaa inaan halkan ugu hambaliyeeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku guuleysigii doorashadii Soomaaliya. mudane shacabka Soomaaliyeed waxay ku siiyeen codkooda si aad ugu hogaamiso nabad iyo xasilooni iyo barwaaqo dhaqaale. waxaan rajaynayaa ayuu yidhi in doorashadaada ay ka dhigi doonto in Soomaaliya ay mar kale lugaheeda ku istaagto. anigoo xafladan ka faa'iideysanaya waxaan ballan qaadayaa in shacbiga Itoobiya iyo aniga inaan sii wadi doono dadaalka aan garabkaaga ku taagannahay ee safarkaada ah inaad dalka ku soo celiso nabadda iyo xasilooni iyo dhisidda qaranka. waxaan kale oo aan doonayaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha xilka ka degaya saaxiibkay Xasan Sheekh Maxamuud iyo shaqadii uu qabtay muddadii uu xilka hayay isagoo dalka gaarsiiyey dimuqraadiyad buuxda iyo sidii uu awood u wareejiyey. mudane waxaad u qalantaa in wax badan lagaaga mahadceliyo. My thanks and appreciation also go to the outgoing president, my friend Hassan Sheikh Mohamud, for the achievements he has made during his tenure and for peaceful and democratic handover of power. Your Excellency, you deserve congratulations. waxay la tahay in dawladda cusub ee Soomaaliya waxaan halkan u joogno maanta ay tahay inaan qeexno midnimadeena iyo sidii aan Soomaaliya u garab istaagi lahayn si ay u gaaraan xasilooni iyo nabad. waxaan doonayaa inaan si daris ahaan aan uga wada shaqeyno arrimo badan oo ay ka mid yihiin ganacsiga. taageeradana Soomaaliya waxay ku tiirsanaan doontaa xushmad xiise ku dhisan xushmad. waxaan rajaynayaa inaan aragno Soomaaliya oo nabad iyo xasilooni ah taas oo ah mid saameyn ku leh nabadda iyo xasilinta gobolka iyo sidoo kale horumarinta dhaqaalaha. waxaan doonayaa inay Soomaaliya ay positive u noqoto arrimaha gobolka iyo arrimaha kale ee ka baxsan. mudanayaal waxaan doonayaa inaan hadalkayga ku soo gabagabeeyo oo aan dhaho. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, let me conclude my remarks by saying Hambalayo, Hambalayo, Hambalayo to President Abdullahi Mohamed. Thank you.